بسم الله الرحمن الرحيم داود يال halkani waa qorxay media waxaan maanta waraysi la yeelanaynaa Maxamed Axmed Xasan oo loo yaqaan Dr. Zakariya waa gudoomiyaha Sirda oo ay maanta sharaf u ah warbaahinta qorxay media inay kulankan qayimka la yeelato gudoomiyaha waa hogaamiyihii ugu horeeyay ee horseeday inuu la midoobo ururka ONLF oo 18 August ay ku saxiixdeen heshiis isku milmayaan labada urur ee magaalada London maanta ayo gudoomiyaha waxaan ku soo booqanay hotelka uu ka degan yahay magaalada Jigjiga waxaana weydiin doonaa su'aalo ay ummadda Soomaaliyeed aan rajaynayno inay ka wada bogsan doonaan Dr. Zakariya ku soo dhawow qorxay media. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Sida uu sheegay Maxamed Axmed Xasan baa maaragtay Zakariya barashadaydu waxa weeyaan magaalada Darqaba ayaan ku dhashay dabadeed wixii aan maaragtay aan iskool waxaan ka galay magaalada Darqaba iskoolka secondary waxaan ka galay Saba dabadeed wadanka waan ka baxay ilaa Soomaaliya baan tagay si aan maaragtay dhibaatooyinkii dadka Soomaalida haystay markii aan wajahsanay Soomaaliya aan tagay si aan bal xagga maaragtay aan dhaqdhaqaaq aan uga wadno dabadeed loo soo toogeeyay ka baxnay Yurub baan galnay markii dhalinyaro badan xagga aan uga badan ka sameeyay dabadeed jaamacadaha inuu waxaan ka galay xagga iyo jaamacadaha waxaan ku kooraa qalin maaragtay xagga economiga maaragtay jaamacadda economiga ka baxay dabadeedna waxaan galay jaamacadda sociology iyo maaragtay ka qalin jabiyay maaragtay dabadeedna waxaan qoray buug ayaan qoray mid ku saabsan Soomaalida iyo burburkii Soomaalida iyo dhibaatooyinkii maaragtay soo gaaray dabadeedna waxaan qoray buug kale maaragtay sidoo maaragtay Ethiopia iyo dadka Soomaalida ku saabsan iyo taariikhda dadka Soomaalida iyo sidii loo soo guuleystay dhibaatooyinka badan marka buugga hore waxaa la yidhaahdaa maaragtay xagga Ingiriiska ugu sheegay inkastoo German afjarna ku qoray buugga ugu horeysa waxaa la yidhahdaa The Destruction of Identity and the National State كلامات لو حنا إلى ما the negative dialectic of political and social problems ويان كنا ومركا وحنا إنتهى وحوين power كان مارك سلا مارك دولتها قاركود مداحة قاركود مارك حتى وقابلت مارك أيضا سلا بعنا ومعملان معمل كحن دكتاتور نماذج سلا ويا iyo inta dambana waxa weeyaan waxaan adoo comparison ku sameeyay ormada kala system iyo maaragtay wax la yiraahdo Ethiopian fataha next ideology-ga maaragtay Ethiopianism ka xagga maaragtay Ethiopian church-ga dabeedna iyo dadka qadiimka Soomaalida sidoo dadka Soomaalida loo soo guuleystay dadka maanta maaragtay soo gaaray marka labada buuq waa labada buuq waxaan maaragtay isma kaanaan qoraahay waxaa jira waxyaalo badan oo kale iyo kanaan qoray iyo isku jira ururka sameyntiisa intaadan bilaabin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo doctore sababtii loo aasaasay ururka Sirda ururka Sirda waxaa kamid ahaa intii horta dadka Soomaalida ilaa intii la guulaysanay dhibaatooyinkooda aad u badnaayeen dadka Soomaalida waxaana waan kala xirxirnay Soomaalidu aad bay u kala xirxirnay meesha maanta ahaan hadday dhagax buur wixii ka dhacaya ka Darqaba jooga amba ka maaragtay jooga jooga amba Shiniida jooga warka maahina ka maaragtay isagu jooga maaragtay goday jooga ka kale Shiniida jooga amba ka maaragtay jooga mooyaale waxba oo nalahay dadkeena Soomaali sidaa baan maaragtay oo kala goog aaba maaragtay yaa ilaa maanta la haystay marka dhibaatooyinkeeni waxa weeyaan ilaa maanta maaragtay midnimo kamaanan keenin annagoo midana meelna kala soo jeesan ONLF-na kaligeed bay ku qabsatay maaragtay halgankii dadkeenuna may fahamsanayn maaragtay ONLF qadiyadeeda iyo waxa u dagaalamayso inay Soomaalinimo u dagaalamayso dadkeenu maaragtay indhaha way iska qabteen dagaalna way iska xidheen waxa u qaateen maaragtay inuu qabiil uu yahay laakiin essence-ka uu dagaalkooda ay maaragtay shicibka markaa
ogaadeen yaa uu dhiigga maaragtay u daadinaya dhibaatooyinka maaragtay iyo kasta oo soo food saaray dadkeenu mayna fahmin bay ahayd laakiin haddana dhinacii kalena maaragtay soomaalida dhibaatooyin xoog laa saarnaa markaa dad kale oo isxilqaamo oo yidhi urur aan samayno soomaaliya haddaaba diideenba onlf laakiin urur kale oo soomaaliya alternative ah la sameeyo markaa anagu sidaa daraaddeed waxaan yidhi balbal ururkan sarda aan samayno laakiin anagu qadiyadayadu waxay ahayd bal qalin in wax lagu doono si maaragtay bal imikahaan qoriga anagu madan xuquuqdeeda oo hesho marka waxaa anagu programkeeduna direct u ahaa wuxuu ahaa self determination foundation up to secession systemka federalismka waa macnayna maadaama systemka federalism inkastoo constitutionka Ethiopia loo dhigo uu fiicnaa laakiin tun laga camal falayo oo maaragtay systemka federalismka loo dhigayo lagu camal falayo ma aha uu qornaa dastuurku laakiin lama tatbiiqinayo markaa sidaa daraaddeed waxaan nidhi markaa systemka federalismka dib aa loogu noqdo xuquuqda dadka soomaalidu ay Ethiopia ku leedahay waa in dib loo eego waxa weeye haddayna qowmiyadda labaad ahayn waa qowmiyadda saddexaad bay leeyihiin haddayna dhulka ugu weyn ahayn waa dhulka labaad bay leeyihiin marka meesha dhaqaale maanta Ethiopia ka soo gala run ahaana waa dhulkeena weeyaan meesha taxka ugu weyn leh maanta ahaan laga qaadana waa dhulkeena waa dhulka dadka soomaalida maanta ahaan taxka ugu badan ee waddanka laga qaada marka systemka meelaha ay cashuurta ka soo xarato oo isaga ugu badan markaas waxa weeyaan systemka federalism waxa weeyaan hadduu waddan uu dhaqaale leeyahay waxa weeyaan awoodda qaybsiga kolkay tahay in ay qowmiyadaasi amba maaragta waddankaasi uu awood weyn uu ku yeesho xaggii dowladda centraalka sida iminka maanta Addis Ababa oo kale oo maanta minister kula aan ku leenahay meeshii aan ka lahaan lahayn 4 ilaa maaragta 5 minister lagu lahaan lahaa meeshii aan ku lahaan lahayn maaragta waxa maaragta agaasimayaal badan waddankaan ku lahaan lahayn meeshaan maaragta xagga security-ga iyo xagga booliiska iyo xagga militariga aan ku lahaan lahayn maaragta generaliya oo maaragta oo agaasimo sare aan ku lahaan lahayn maahina xaggii kale ee maaragta ambaasadarada adduunka inaan waxa maaragta ay dadkeenu wax badan ay ka qayb qaataan maaragta ay xaq u lahaayeen wixii xaq ay u lahaayeen in lagu siiyo ay ahayd intii kumayna helin tii kale haddana gudaha kolka loo soo noqdana cadaadis xoog leh oo adduunka laga arkin baa maaragta dadkeena la saaray waxaa loo samaystay maaragta jeel ogaadeen kolka loo eego waxa weeyaan waa concentration campka waa tii fashistiga maaragta dadka uu ku gumaadayo oo dadka yuhuuddana ku gumaadi jiray wax la arko oo la maqlo oo adduunka ka dhacana ayaa maanta adduunka meesha yuhuudda lagu baabi'iyey marka dadkeena maanta ahaan weliba khaas ahaan 10 sannadood ee ugu dambeeya 27 sannadood ugu dambeeya qolada Tigray waa haysatay dhibaato xoog leh iyo dadkeena ku haysta dhulkeennii bay qoobqabtay dhulkeennii bay maaragta dadka kale haysa qowmiyadaha kale ay siisay taa waxaa ugu daran maaragta dhulkii dhaqaalihii waddanka ay qoobayaan dadkii ay sabool ka dhigayaan dadkii ay gumaadayaan hablihii oo la faruxumaynayo wax adduunka ka arkin maaragta cadaadis adduunka laga arkin iyo maanta ahaan maaragta dadkeena lagu hayo dhibaatadiina maanta may dhamaan inkastoo maanta ahaan maaragta dowladda Ethiopia isbedeshay maanta ahaan oo nin oromaa uu qabtay laakiin haddana dhiiggii soomaalida siduu uu daadanaya dhiiggii soomaalida daadistiisii ilaa maanta muu dhamaan marka waxa weeyaan waxa qoran in kaga bixi karayna marka uu sarta ay garatahay in midnimo lagaga bixi karo sidaa daraaddeed iyana midnimadaas aan ka su'aal kaa weydiiyo ee midowga oo wanalaf iyo sirda eed samayseen maxaad natiijood ka filaysaan wax caqabado si idinkaga yimid ma jiraan maadaama soomaalidu ay waayadan dambe Ethiopia faragelin badan ku lahayd horta dad iminka ahaan baa waa bilowgii iminka ahaan maaragtay socdaalkeedu iyo midnimadayadu waa bilow weeyaan waddankii waa naka iminka soo galay inta hore dibadda waan ku wada sheekaysanayna wax badan baan maaragta aan ku wada sheekaysanay marka waxa weeyaan iminka ahaan wixii iminka ka gudihii iminka aan soo galay in aan structure politiki aan dhisno in aan program politiki aan dhisno in ma ururkii la shaqeeyo bixalla wixii xoogagii kale ee soomaalida amba urraa ahaadaan la mideeyo inay maaragta ay ku soo wada beeraan oo urur mida aan noqon
waxa qura aan kaga bixi karayna maanta ahaan dhibaatada xoogga leh ee dadka Soomaalida haysata waxa weeyaan waa